السلام عليكم ورحمة وسنسم حسن وإذن لكم سودواء تاريخ الشيخ قيبتي تضباط مدده سلطان حسين بن درعان حكم كهي وحوها سلطان آد ودور شريعة الإسلام فأود دوينها ديزان كنا آد وتعليهين ونقدريان وحونا شيخ السحاق ونقضي عن يري وكنا كالسون يهي oo kala taliya iswaafajinta arrimaha shariicada islaamka iyo maamulka dalka taasi oo uu muddadaasi ahaa sheekh si weyn u qadariyaan suldaanka iyo dadweynaha deegaanka wiilkii ugu horeeyay ee ugu dhashay sheekh Isxaaq deegaankaasi sabab wuxuu u bixiyay magaca Darcaan taasoo ugu magac daray awowgii hooyo uguna magac darida noocaasi ah ee uu wiilka ugu horeeya ugu magac daray awowgii hooyana waa mid ka muuqata dhaqanka sheekh Isxaaq sidaynu ku arki doono qoraalada soo socda sidoo kale wiilkii labaad ee magaaladaasi ugu dhashay wuxuu sheekh Isxaaq u bixiyay Shariif oo ugu magac daray abtigii Shariif bin Darcaan kasoo qoyska boqortooyada uu ka tirsanaa wuxuu ahaa maalqabeen hanti iyo xoolo aad u fara badan leh wuxuuna wiilkan yar ee loogu magac daray ugu deeqay hadiyado ay ka mid yihiin 3 faras oo dhadig ah oo aan weli curan hase ahaatee Shariif bin Darcaan muu noqon muddo dheer sii noolaada ee 2 sanadood kadib markii wiilkaasi loogu magac daray ayuu geeriyooday